badmareenadii Carbeed iyo kuwii Islaamka ahaa ee yimid Soomaaliya. Islaamka markii uu hana qaaday waxa dhacday in Carabtii ilbaxa ahayd ay aad u daneeyaan Soomaaliya, waxaana markaa Soomaaliya yimid dalmareeno badan oo Carbeed ama Muslimiin ah kuwaas oo qoraal ka sameeyay Soomaaliya. dalmareenadaas iyo taariikhihi ay yimaadeen Soomaaliya ayaan ku dulmarayaa. Waxaan ku bilaabayaa Al-Yacquubi wuxuu Soomaaliya yimid 897 miilaadiga, magaciisa oo buuxana waa Axmed ibn Abi Yacquub. waxa uu ahaa taariikhyahan iyo juqraafiyaqaan Carbeed. waxa uu qoray kitaabka caanka ah ee loo yaqaano Al-Buldaan, buugga dalalka. waxa uu sheegay in xeebaha bari ee Afrika ay ku yaalaan magaalooyin Islaam leeyahay oo ganacsiga caan ku ah. waxa kale oo xusay in Carabtu ay muddo dheer ganacsi iyo guur bala lahaayeen dadka degan xeebaha Soomaalida. waxa uu tilmaamay inuu booqday dekedda Saylac iyo magaalooyin kale oo ku yaala Soomaaliya. dalmareenka labaad ee booqday Soomaaliya waxa la oran jiray Al-Mascuudi. waxa uu Al-Mascuudi noolaa 893 ilaa 956 miilaadiga. magaciisa oo buuxa waa Abu Al-Hasan Al-Mascuudi. waxa uu caan ka dhex yahay bulshada Carabta waayo waxa uu ahaa socdaale iyo taariikhyahan weyn oo Carbeed. waxa uu qoray qoraalkiisa caanka ah ee uu magac daray beeraha dahabka iyo macdanta luulka. waxa uu faafiyay jidadka ay adeegsadaan doomaha Carabta ee ku socota xeebaha Soomaalida ilaa Soomaaliya oo South Africa. waxa uu tilmaamay magaalooyin gaar ah oo dad Muslimiin ah ay ku nool yihiin oo ku yaala xeebta Soomaaliya. waxa kale oo uu xusay in magaalooyinka Soomaaliyeed ay yihiin xarumo ganacsi oo laga dhoofiyo falmaroodiga, macdanta qaaliga ah iyo xoolaha nool. ninka saddexaad ee idinku xijin doono waa Al-Istakhri. magaciisa oo buuxa waa Abu Ishaaq Al-Istakhri. waxa uu qoray buugga la yiraahdo Al-Masalik wal Mamalik, buugga wadooyinka iyo boqortooyooyinka. waxa uu ninkani sameeyay khariirado juqraafiyadeed oo duug ah. waxa kale oo uu kaydiyay sawirro hore oo ku saabsan dunida Islaamka iyo gaar ahaan kuwa ku saabsan Soomaaliya. waxa uu tilmaamay oo calaamadiyay wadooyinka ganacsiga ee isku xidha Carabta iyo Bariga Afrika. waxa uu si gaar ah u xusay dekedaha iyo maraakiibta Carbeed ee ku hoyda ama ka shiraacda xeebaha Soomaaliya. ninka afraadna waa Ibnu Hawqal oo qiyaastii 977 miilaadiga noolaa. magaciisa oo buuxa waa Abu Al-Qasim Ibnu Hawqal. waxa uu qoray kitaabka uu ku magacaabay Suurat Al-Ard, sawirka dhulka. ninkani waxa uu socdaal ku tagay Afrika, Andalus iyo Bariga Dhexe. waxa uu si gaar ah u booqday magaalada Saylac iyo magaalooyin ku yaala xeebta badda Cas iyo badweynta Hindiya. waxa uu isagu sii faafiyay qoraalladii Al-Istakhri. waxa uuna si gaar ah u tilmaamay dhaqaalaha iyo ganacsiga. ninka shanaadna waa Al-Biruni oo noolaa 973 ilaa 1048. magaciisa oo buuxa waa Abu Rayhaan Al-Biruni. waxa uu ahaa saynisyahan weyn, aqoonyahan xidigiska ku caanbaxay iyo taariikhyahan Muslim ah. waxa uu qoray kitaabka uu ku magacaabay Tahdiid Al-Nihaayat Al-Amaakin iyo kitaab la yiraahdo Al-Hindi. waxa uu bixiyay xog ku saabsan badaha, waqtiga iyo masaafada ay isku jiraan magaalooyinka Soomaaliyeed. ninkan ku darayo ee lixaad waxa weeye Ibn Battuta. magaciisa oo buuxa waa Abu Abdullah Ibn Battuta. waxa uu qoray kitaabkiisa caanka ahaa ee Rihla, waa kitaabka safarka. Soomaaliya waxa uu booqday Muqdisho 1331 miilaadiga. waxa uu faahfaahin dheer ka bixiyay bulshada, ganacsiga iyo Islaamka magaaladaas. waxa uu Muqdisho ka qoray qoraalkan. Muqdisho waa magaalo aad u weyn oo dadka degan ay yihiin Muslimiin sharaf leh, ganacsigooduna uu gaarsiisan yahay Hindiya iyo Shiinaha. Muqdisho waa magaalo baaxad ahaan aad u weyn oo aan la soo koobi karin. dadkeeduna waxay leeyihiin geel fara badan oo ay maalin kasta qashaan boqolaal. waxa kale oo ay leeyihiin ida fara badan. dadkeedu waa dad aad ugu wanaagsan ganacsiga. waa magaalo lagu farsameeyay dharka, loogu magac daray magaalada kuwaas oo aysan jirin cid kale oo tatamaysa. waxaana dharka loo dhoofiyaa wadamada Masar iyo meelo kale. nimankan aan ku xusay dhammaantood waxay ka mid ahaayeen badmareeno, taariikhyahano iyo juqraafiyaqaano Carbeed oo qoraallo lagu xasuusto oo lagu xuso xeebaha iyo magaalooyinka Soomaaliyeed tibaaxay oo qoray. waxayna arrinkaasi cadeynaysaa in xiriirka Soomaalida iyo Carabtu ahaa mid horeeyay. waxaan qaybtan ku gunaanadayaa sheekada nin Muslim ah oo u dhashay Shiinaha oo dalmareen ah oo yimid dhulkeena Soomaaliya. waa sheekada safarkii ninka lagu magacaabi jiray Shankihi ee Soomaaliya. dadkii kale ee ahaa dalmareenada Muslimiinta ee yimid Soomaaliya waxaa ka mid ah Shankihi oo ka soo jeeda dalka Shiinaha, gobolka hadda loo yaqaan Yangon. safarkiisa ugu horeeyay Shankihi waxa uu booqday magaalooyin badan oo xeebaha Soomaaliya oo ay ku jiraan Muqdisho, Barawe iyo Kismaayo. waxaana jirta tuulo u dhow Kismaayo oo eega webiga Jubba uu maro oo lagu magac daray badmareenkaasi Shankihi oo u dhashay Shiinaha oo dalmareen ah oo yimid dhulkeena Soomaaliya. waa sheekada safarkii ninka lagu magacaabi jiray Shankihi ee Soomaaliya. dadkii kale ee ahaa dalmareenada Muslimiinta ee yimid Soomaaliya waxaa ka mid ah Shankihi oo ka soo jeeda dalka Shiinaha,
gobolka hadda loo yaqaan Yaanun. safarkiisa uu horeeyay Shangahi waxa uu booqday magaalooyin badan oo xeebaha Soomaaliya oo ay ku jiraan Muqdisho, Barawe iyo Kismaayo. waxaana jirta tuulo u dhow Kismaayo oo eega webiga Jubba uu maro oo lagu magac daray badmareenkaasi Shangahi. taariikhdu waxay xustaa markii uu Soomaaliya ka laabtay waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ee 1415 uu kala laabtay waxa kamid ahaa gari. waxaana lagu tilmaamay dhammaan waxyaabihii uu safarka kala soo laabtay wixii ugu xiisaha badnaa ama qiimaha badnaa inuu ahaa gariga uu kala yimi Soomaaliya. garigaas oo lagu xusay buugaag fara badan. Shangahi maraakiibta uu safarka ku gali jiray waxa taariikhdu xustaa inay aad u baaxad weynayaan. si aad u aragtid baaxadda maraakiibta Shangahi waxaad booqan kartaa moolka Ibnu Battuta Mall oo ku yaala Dubai. Shangahi waalidkiisa oo muslim ahaa waxay u bixiyeen magaca Moha oo afka Shiinaha ku noqonaya Muhammad. aabihiis iyo awowgiiba waxay ahaayeen muslimiin waxayna tageen xajka. arrintaas oo wiilka yaraa ee Shangahi ku dhalisay inuu maalin sidaas oo kale uu safar dheer u galo. intii uu noolaa Shangahi waxa uu tagay xajka Makka iyo Madiina. waxaa jiray meelo badan oo loogu magac daray magaciisa. waxaa goobahaasi loogu magac daray ay ku yaalaan Thailand, Malaysia iyo Indonesia. waxaa kale oo ay taariikhdu xustaa in xiriir wanaagsan uu ka dhaxeeyay Soomaalida iyo muslimiinta Shiinaha. xiriirkaas oo bilowday xilligii Shangahi, xiriirkaas oo la tilmaamo inuu wali jiro. taariikhdaas ay damareen muslimiintu ku imaanayeen dhulka Soomaaliyeed waxay muujiyeen Soomaalidu tahay dad leh taariikh aad u facweyn oo aysan ahayn dad dhawaan dhulka soo degay. waxa kale oo ay tilmaamaysaa in Soomaalidu yihiin fac xadaarad sida Muqdisho ay ku yaaleen warshado lagana dhoofin jiray alaabada ay ka mid ka yihiin dharka lagu sameeyo Soomaaliya. waxaan ahay Muxiidiin Cabdi oo juqraafi kala socotaan. haddaad nagu cusub tahay fadlan page-ka Flowsar haddaad la socotayna like iyo share bay isugu darso u gaaro saaxiibo